منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا ولا ليال بشا بركيسن إنكو أو عافماد هينا ونبدينا هينا إلها نسو قارسيي بانكم مهدنينا waa inay nicmadaasi qalbigeena ku weynaato adoo beled aamina joogo waddankaagii aamin uu yahay jirhkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wacalaa bisha rabadaan ku soo gaadhsiiyey waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kal hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaana way ka intiqaaleen dad badan baa kal hore iyakoo caafimaad qabuu rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaa nicmadaasi ay qalbigeena ku weynaato ilaahay baa le wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi runtiina waa bil aada u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waa kii lahaa maalmihiina inagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khasladda koobaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimce ayaa jannadana la geliyey maalin jimce ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yihi saacatulijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yihi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jamce waa nicam weyn weeyaan ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan habeenkii ugu horeysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaye dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bini aadanka
وبش كلية إلهي جل وعلا قرآنك وكل شيء مقعيقة شهر رمضان وبش ما ركتان اللي يري وبش القرآن كنا أوسودقي وبش كلية النبي أو يري هبين كستو أو بش رمضان كم يدبو النبي يقول وحو إلهي لي هي الضوء ونار تكحريو وبش كلية إلا شيء إن الباب جنة الله فرو وبش كلية إلا شيء إن الباب النار هنا الله حلو بل تري فضائل كيك بش رمضان فضل إلى ده وبش كلية النبي يقول يري مردة الشياطين ولا جحد بني آذنك وبش أي كجر تهبين كي ويناء قرآن كإلهي وصدق جارك وجو أماني ويري إنا أنزلناه في ليلة القدر طبعا كدمنا الله نقارسيه وبالآذو بركة سنة حرمة ديدا إن لا سيا أيه متيسد أيه مدن تعبشني الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلهينا واكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك هيك كعب المرين دونه وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتونن أفرين وحا أوليه هي دعاء أقبله ومرك عداد أي سيد عيسو هذا فرك ودي أرجروبي سحلك دعاء والله أقبلاي باهد هذا إلهي وشيقه صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهواتك النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا xanuunada dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayay bisha Ramadaan ay daweysaa bal dhakhtarada ay waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku oranayaan bisha Ramadaan baan ugu shaqo yarnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado ma ba aragnay buu dadka bukaanku way yaraadaan وبشي عافماتك وبشي إلهي تبارك وتعالى لو دواناي وبشي دنب دافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نينكا صوم ابو نبي غليهي مالين كاستو او بشا كميدا نينكا صوم ابو نبي غليهي دنبيgiisii horona waa loo dhaafaya man saama ramadaan bisha ramadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar Allah xaqiisa ka yimiday ihtisaabna waa maxay ajarka iyo thawaabkana ilaahay tabaaraka wa taala ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaal mariyo dambigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nabigu alayhi salaatu wassalaam من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نك بشهر رمضان صلاة تراويح ذا أكعب نبي قليه عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كوكال صونو إيمان قبه واحتسابا أجر يثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجين أجر وكسي عبادة سقنا دنبقي هري وقد عيو دنبا لقد عفاب نبي قل عليه الصلاة والسلام وبشأ النبي يري عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب النبي يقول تمر هدي تمر ويانا بيها عدها كو أفرب رسولك يري وشريعة الإسلام كو عجيب لبدان الدواء كجرته وقو تمرتا محو النبي يقول تمرتا وهو الرئيسي وحال عنتد إلى هاي دولك أو كسو صار أو دن مذ والب في تميغ كجرتا أيا تمرتا ودن إلى هاي كو أبو ريبا ليري hilibka fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa wax liya waxa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaan nicam ilaahay bin aadanka uu siiyay cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiga si gaar ah iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay baa ilaahay timirta inoo soo dhex galiyay
timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin markay risaaladda muxamediyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadaan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayay akhrin jireen qur-aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bisha maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaatalleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonayaa laba meeloodba shaydaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shaydaanka ayaa dega aqalka madhanna shaydaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo oo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bisha qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakuljibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen inakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aada akhridaa si bishaa rabadaan qur-aanka mar aada u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aada akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6 maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer cuثmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dembeeyey xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximah ullah ayaa laga sheegay inuu bishaa rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayay 60 jeer inaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yaree adduunka lagu sheegay maanta dadka o dhan ka cabaadsiiye ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa leyt sida xanuunka aan u hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn oon qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeya keligay baan xasuusan addoonka jamc igu dhex xasuustana jamaca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi natadaakar intaad wax kale hadal haysid makhluuq intaad hadal haysid waxaad inaad hadal haysa kula quman oo kuu fiican inaad ilaahay la munaajootid saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay qur-aankiisay akhrisanayaan qur-aanku waa kalaamki ilaahay waa mawcidadii ilaahay uu caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog
وقفك تكني إلهي بولمنا جونيا هذا دونت إلهي وإنه أذيك كلها لنا قرآن كيسك الله فرق قرآن كإلهي أخرسه صحابة رضي الله عنهم اسكدا مساجد كدحدي ذي ملها مجالس أيليه مركب فرديان وحي مارك تاني أي دقي سنة مر والبا إن إلهي يسحسوسيان وآخرة يسحسوسيان وساعد قيامة يسحسوسيان في السنن وحو نبي وحو شيء إمام مسلم رحمه الله رسول كان عليه الصلاة والسلام أيا صحابتي سقار كمدو ميل فرديا أيو نبي ويمدي مركب نبي كويد محل هذا الهيسان بلي شيء مركز سيد هذا ساعد قيامة أيان هذا الهينا وزمن كي وكوني أفر بقول أو سنة كهر انتي صحابته ميل أي فريستان بكشي كينيين ساعد قيامة أساس عتقور ما يدعي دونتا أنك أوجا حق له إن ما أنت هذا الهينا ساعد قيامة مركب النبي كويدي إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات ساعد قيامة مدى عيسى النبي يقول إمني ميسو إلى كهر الأركتان طبعا علامات النبي يقول عليه الصلاة والسلام طبعا كعلامات وعلامات الكبرى أيا اللي هذا لكن وحاجر أشراط الساعة وحلا هذا علامات الصغرى يكو والله أركي ما أنت هدي لا ترينا ما أنت ما قالوا والب ولا جهل يا علامات الصغرى لكن النبي يقول صحابة حديث كأوح وقش شيء ساعد قيامته إنين بعدون إلى الأركتان ما أدوية دوشيد اللجو أركو طبعا علامات النبي يقول عليه الصلاة والسلام فذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كأنه يري ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركتهم على مدود مركب النبي يقول شيء قيق صمد كيمن يبو النبي يقول شيء كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وحو النبي يقول شيء قيق صمد كيمن يبو النبي يقول شيء وحكلوا النبي يقول شيء دجال بو النبي يقول شيء عليه الصلاة والسلام وأدوية بقعد كما تالو إلا دجال أمريا dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaibin yuntadar ayuu nabigu yidhi fadajjal fa sharru ghaibin yuntadar aw as-saa'a wa saa'atu adha wa amr dajjal buu nabigu sheegay inuu imanayo aakhir zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصابسا مرقو نبيقو وقور رمايو وحايدادين وحان موذي جرني سدا وهذا النبيقو قلوب تهدى أساميني درتنا قدام بيسينو الدجال كجرانو ملينين أصحابتو دادين وأكوني أفر بغلو سنة كهر ويان وحاس ونبيقو كور رمايو إنك أنا ما تزمك أنا كور رما كورونا فيروس ما مات عالم كنا وريريو لهذا الحياة حنون أمر إلهي كالسعودة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودا لابد يسكت ما دمانت كشا كيسان إسا صحابتنا كون يافر بغلو سنة كهر وحي كشا كيسان دجال إنو صو سعودو مركو النبي قد دجال وغشا كينا ينبيد هذين وحنون ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي وقبان درتنا قدام بيس الدجالين وكجرانو ملينين أصحابته إلى دجال بنبي وشيقين وأدون كودان مرايو جنة النار وحويك بوتا وحو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفلي قفكي السقر الرمية الراعنا وحا جنة وتا أيو كتوريا ضل علي دادكي السقر إنكري هذا الرب متهيدي كافر دجال آيات هينا نارتو كتوريا مرقاب نبي قوليه عليه الصلاة والسلام طبعا كآيات سورة الكهف نكا آخر استمالنتي إلى هاي فتنة الدجال وكبت بادي أبو رسول كويدي وفي رواية طبعا كدبن النبي قوى شيء وحكلوا النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام دجال إنه أدون كودن وصامين وقليا مكية مدينة مقليا أبو رسول كويدي
وفي رواية حديث waxay sheegaysaa afar meelood dajaal ma galayo jabal tuur boortii nabi Muuse alayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nabi Muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makkana ma galayo madiinana ma galayo qudusna ma galayo bu rasuulku masjid al-aqsa dajaal ma galayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee Makii Madiina dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayaka dajaal banaanka ugu baxaya bu rasuulku yiri calaamada saddexaad buu nabigu yiri waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta Safa la yiraahdo inna Safa wal Marwa sakhrada bay ka soo baxaysa iyaduna adduunyada dhan bay maraysaa qof kastoo adduunyada ku yaala bay nabigu yiri waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna waa ku qormi doontaa bu rasuulku yiri muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaloo nabigu sheegay inuu imanayo nabi ciise calayhi salaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksira asaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu aljizyata nabi ciise calayhi salaam ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shareecadda islaamku adduunyada ku xakumi doonaa uu cadaalad fali doonaa dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyey uu ka rafici doonaa saliibka gaaladu ay yidhaahdaan nabi ciise lagu xidho lagu daldalayna uu jabin doonaa cadaaladda islaamku adduunyada dhan ku xakumi doonaa buu rasuulku yidhi waxaa kaloo nabigu sheegay yaajuuja wa maajuuj in iyakana la furi doono buu rasuulku yidhi waa laba ummadood oo ku abtirsada yaafith binu nuux bay ku abtirsanayaan ummadiiba waa 400,000 mid iyaka ka mida ma dhinta baa la yidhi ilaa uu arko 1 wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane ummaddaana adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuj wa maajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yihi calaamadda lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobadkeena buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacala waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhaahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonaya toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cadceeddu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yihi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cadceeddu ay ka soo baxdo waddanno dhan iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda toddobaade waa taas calaamadda sideedaad buu nebigu yihi khasfun fi lmaqrib galbeedka adduunyadana waddanno dhan iyo ummado dhan baa dhulku la gu'i doonaa calaamadda sagaalaad buu nebigu yihi khasfun fi jasiirati alcarab jasiirati alcarab dhexdeedana dhul iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda tobnaad buu nebigu yihi walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaame dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi 10 calaamadood baa ka soo horreeyey buu nebigu yihi saacadda qiyaamada 10 calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta bishani markaa waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiyo biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka waran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anaa ini xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay
marka bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahada dadka dhibtaas soo gaadhana allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka u hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu rasuulku yidhi ilaahay barya buu nebigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta ininkoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء وحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة طب النبوي إمام قيم ابن قيم رحمه الله حديث كأيوك الشيقي بلايوينك الضبيله أي وضان بو نبي قول هي دعاكو قابل دعاء ذوي وعيسى بلايدا حوله إننا وحدكو إلى لسان بو نبي قول هي الزكاة haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqada ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabatu sawdaa dawaaun min kulli daa xabasuudda buu nebigu yidhi xanuun kastaoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilma tajaarub waa cilmiga tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilm alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaaءun linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan mu'minka inuu gala maaha khabarka ilaah iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaah iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warkaa uu galay allah inaga dhigo bishani waa bil barakaysan markaa han ducaysano in sha allah وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبب النزول كآية أي كسوة تجتمعي هيد لأن أعرابي ورير بادية أي النبي جينا ويمد عليه الصلاة والسلام وحول يا رسول الله إله حقي سأد نوغو يريسا ما من نقر ديرو مركان برينا ما نقيلنا مسوا من نودو والله مناجونا يهوس بنا حقو شاقنا بالنو شاق u aamusay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam deedna markaasay aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay ka i baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in lagaa aqbalo imse shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo طaacadda ilaali oo wixii macruufa ilaahay ku faray la kaalay wixii munkaree shareecaddu ay kaa reebtana ka reebtoom walyuuminuu bi ilaahayna rumee oo ilaahay aamin macnaheegu waa maxay alqadaa wاlqadar waxa ilaahay kugu xakumayna ku raali noqo wixii ilaahay kuu qadarayna ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaado waxa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saamayn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsin min alamwaal wاlanfusi wاthamaraat maxaa ku xiga wabashiri saabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan
addoonkuna maaha musayara waa mukhayar addoonku mukhayar maahayna waa musayar addoonku wax ma dooran kara isagu wixii ilaahay kuu qadara adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'igtu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhaahdaa addoonkaygii ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen haa bay yidhahdaan addoonkaygii midhihii qalbigiisa ma soo qabateen haa waan soo qabannay markaasuu ilaahay yidhahdaa famaada qaala cabdi addoonkaygii markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yidhi balii sheega markaasay yidhahdaan xamidaka wastarjaca xamida ma macna alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi markaasuu ilaahay yidhaahdaa maadaamuu addoonkaygii markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen uu aniga ii mahadnaqay uu isaguna xaggayga u soo noqday ibnuu licabdii beytan fi ljanna aqal jannada uga dhisa aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa mu'minku barwaaqadana uu ka macaashaa masiiba hadday ku dhacdana uu ka macaashaa waa qofka mu'minka laakiin fa ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaanka haynoo adkeeyo amiin dhahada bishaan rabadaanna allah haynaga aqbalo dad walaalaheena dibadda taagan oo masaajidka maasha allah aad baa loo buuxiyey in sha allah khudbaddaan iska bilaaban doona allahna inagu anfaco wa sala allahu calaa sayidina moxamed